jaajuusadii dowladda Kenya ay ku shaqeysanaysay ex-ra'iisul wasaare Khayre oo xogteedii la helay Samira Guleyd oo ah gabar Soomaali ah oo u dhalatay dalka Kenya kana soo qabatay xilal kala duwan sida agaasimaha xiriirka iyo warbaahinta madaxtooyada Kenya State House marna noqotay turjumaan la shaqeynaya ciidanka AMISOM ayaa sabab u noqotay dayac lagu dilay saraakiil iyo dabley ka tirsan ciidanka xoogga. Khayre ayaa gacanta u geliyay awoodda ciidanka xoogga dalka waxa uuna ka dhigay madaxa Somali Security Sector Reform oo ah xafiiska dib u habeynta ciidamada Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga oo laga helay xogtan ayaa noo sheegay in Samira ay dayacday ciidan fara badan oo lagu weeraray xarumahoodii halka kuwa kalena ay ka raacday shaqada iyada oo adeegsanaysa awoodda xafiiska ra'iisul wasaare Khayre oo ah shakhsi lagu tuhmayay inuu u shaqeynayay midowga Yurub oo ka iibinayay xogta qaranka Soomaaliya ayaa waxa uu adeegsanayay Samira si ay xogta qaranka iyo mid ciidamada uga iibiso dawlado dhowr ah oo kamid ah dawladda Kenya oo u soo dirsatay Soomaaliya. Dhinaca kale afhayeenkii hore ee wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan xog laga helay ayaa sheegaysa in Khayre iyo wasiirkii hore ee amniga Islow Ducaale ay macaash badan ka sameeyeen jidgooyo lagu halligay shacabka Soomaaliyeed oo sabab u noqotay xasuuq badan oo ka dhacay dalka muddo 3 sano iyo bar uu Xasan Cali Khayre gacanta ku hayay hay'adaha amniga. Waxaa la iibiyay kumanaan dhagxaan ah oo shub ah kuwaasoo lagu hareereeyay dhammaan xarumaha dawladda iyo xaafadaha magaalada Muqdisho. Sidoo kale dhagxaantan ayaa lagu gooyay wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah sida wadada Wadnaha, laamiga Sodonka, laamiga Warshadaha iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. Xafiiska ra'iisul wasaare Khayre ayaa sidoo kale geystay dayac iyo boob hanti xilli uu ka shaqeynayay tubta amniga waxa uuna lunsan jiray budgetkii ay lahaayeen ciidamada ammaanka gobolka Banaadir iyo kuwa ciidanka xoogga Soomaaliya. Saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ayaa eedda saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha oo si toos ah gacanta ugu hayay galka ciidanka. Xasan Cali Khayre ayaa hadda ku howlan olole oo isugu diyaarinayo doorashada 2021 ee madaxweynaha si uu mar kale u boobo hantida shacabka una iibsado xogta qaranka Soomaaliya.